والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn waa ka cudur daaranayaa erayadan lagu celcelinayo culamo waaweyn ha dambayse inaynu culamana la isku hayaa weynidu haba dambayse casrigan dambana mala dadku iska ammaan jeceliyeyba calaa kulli xaal macallin wax sheegaan ahay wixii alla subxaanaه wa tacaala uu qadaro baan idiin sheegi darsigan wuxuu ku saabsiisay insaa walaalku sheegay aluswa alxasana ku dayashada fiican bini aadamku waxay culammadu tilmaamaan noloshiisa kama maarmo ciduu ku daydo halka ay soomaalidu ka tidhaahdo dadku waa indha ku garaadle garaadkii iyo indhaha la isku xidha taa macnaheedu waxa weeyaan qofka bini aadamkii kama maarmo wuxuu isha ku arko oo uu ku daydo walidaalika ilaahay subxaanaه wa tacaala rusul buu soo diraa bashar oo bini aadamah rusushu dhanna waa dad ilaahay doortay oo waxyigu uu ku soo dego dhanna waa qof bini aadama oo qofka bini aadamkii wuxuu u baahan yahay wuxuu baahileeya o dhan leh si ay u suurtowdo in lagu dayan karo waayo haddii malag lagu soo diro dadku waxay odhan lahayd anagu malaa'ig ma nihin oo shaqada malaa'igta ma qaban karayno laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu soo diray rusul bini aadama waxaa la yidhahdaa cidda qurhe cid ka horraysa uu ku dayda aan haysani dee waa aadam iyo xaawa aadam iyo xaawana isagoo ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo in dhulkan loogu tala galay waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi اlardi khaliifa marka hore malaa'igta iclaamka ilaahay siiyey ee wuxuu sheegaya waxa loogu sheegay in loogu tala galay dhulkan in ilaahay khaliifa uu yeelo aadam iyuu ku dayanayaa markaa iyo xaawe iyagaa tajribe la geliyey intaan la keenin dhulka intaanay dhulka imanin ayaa iyaga min nafsihim laga siiyey tajriba ilaahay uu tilmaamay in janno la geeyey oo wax laga mamnuucay oo dabeetana tajribada ay soo mareen kadib ayaa dhulka la keena walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan qofka bini aadamkaahi wuxuu u baahan yahay ciduu ku daydo xatى الأنbiyaa والrusul nebiy llaahi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam oo afضalu khalqi illaahiya siday culammadu tilmaamaan ilaahay intuu abuuray u fadli badan ama ugu yaraan bashar oo dhan u fadli badan ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala intuu uga warramay rusushii isaga ka horeysay ayaa waxaa lagu yidhi fii suurati اlancaam dhowr iyo 10 nebi baa ilaahay istaba dhigaya markii ambiyadaa ilaahay tilmaamay baa rabbi wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahum muqtadih baa ilaahay yidhi ulaa'ika aladiina hada allah kuwaasi waa kuwii ilaahay hanuuniyey baa la leeyihi waa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam baa ilaahay la hadlaya dabeetana waxaa la yidhi kuwa aanu kuu soo sheegnay ambiyadaa dhowr iyo 10 la xaadiriyey waa dadkii ilaahay hanuuniyey ee fabihudaahum iqtadih iyaga hanuunkooda ku daya baa la yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam nebiyullaahi moxamedna ilaahay wuxuu tilmaamay inuu iyaga ku daydo sidaa awgeed bay culammadu waxay yidhaahdaan bini aadamku kama maarmo almihaalu اlxay tusaale nool oo darajaat اlkamaal dhammaystiray kama maarmo si naftiisu ay u xiisayso inuu gaadho isaguna darajaadkaasi amase uu u dareemo qadar kabiir min alistixsaani waاlicjaabi waالtaqdiir uu u dareemo si uu markaa ugu dayan karo waayo ciddaad ku dayanaysaa waa cid aad cadamo iyo weyni iyo ixtiraam aad u haysid waxa kaloo ay ku dayashadu daliilu tahay baa la yidhaahdaa in dadka lagu qanciyo waxaan inuu suurtagal yihi waxaan lagu leeyahay samee inuu yahay wax suurtagal ee aanu ahayn wax mihaaliya iska khayaaliyo dadku madaxooda uun lagu qurxiyey inaanu ahayne wax nolosha ka suurtagala inuu iyo dee ciddaniba ay samaynayso
sidaa ogeed baa cidda lagu dayanaya inta badan noloshiisoo dhan baa loo fiirsadaa noloshiisoo dhan duuna an yaclam xataa isagoo aan moodaynin ayaa dadku noloshoodoo dhan u fiirsadaa innaga haddaba ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana liman kaana yarju اllaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira innagana ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaanaه wa tacaala waxa idinku sugan ku dayasho fiican alle rasuulkiisii aayaddani waxay ka mid tahay aayaadka ku jira suuraة اlaxzaab suuraة اlaxzaab aayaddani waxay tacqiibinaysaa laga warramayaa dagaalkii khandaq ama gaswaة اlaxzaab dagaal laysu soo urursaday nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam iyo saxaabadiisii dadkii ka ag dhowaaye ka soo hor jeedoo dhammi xilfi gaashaanbuur diinta ka hor jeedda ay isugu urursadeen qabaa'ilkii yahuudeed qabiiladii markii hore ishayeenee quraysh lo odhan jirtay qabaa'ilkii khatafaan loo odhan jiray qabaa'il kaloo carbeed oo reer miyi tiro badana awal qoloqolay ula dagaalami jireen oo inta badan dagaaladii hore waxay dhex marayeen nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam iyo quraysh oo tolkiya laakiin marka kan xilfi wadaag baa la sameeyey niman yuhuudi ay soo xidheen oo ah inay carab oo dhan iyo yuhuud oo dhan intii meeshaa ka ag dhoweyd in la weeraro waxay idhahdeen madiinaba dadka deganay dhowr kun oo qof buu ahaa 3 kun meelahaas ciidanka soo dul fadhiistayna waa 10 kun oo askari oo hubkoodii iyo waxoodiiba wata dagaalkaas sidii uu manage gareeyey iyo nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam qorshayaashuu degay iyo sidii ilaahay ugu gowleeyey kadib baa ilaahay wuxuu leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana inta badan inagu aayaddan waxaa laga yaabaa inaynu deliishanno markaynu sunnada ka warramayno iyo salaadahaasaa loogaga dayda iyo acmaasha sunanka inta badan ayaad maqlaysaa aayaddan oo dhegtaada ku soo dhacayso culammadu ay akhrinayaan laakiin waxa ay aayaddu tilmaamaysaa noloshoo dhan in nebi moxamed lagaga dayda calayhi الsalaaةu wasalaam siduu u maamulay markii ilaahay tilmaamaya laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi waxay culammadu idhaahdaan lama xadidin waxa lagaga dayanayo ee waxa la tilmaamay alrasuul bikaamilih fii rasuuli اllaahi baa la yidhi lama odhanin laqad kaana lakum fii shajaacati rasuuli اllaahi uswatun xasana أو في صبره أسوة حسنة أو في عبادته أسوة حسنة أو في تدبيره وتحكيمه أسوة حسنة أو في يعني nolosha nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam aabbo wuu noqday oo nin caruur koriye wuu noqday oo nin sagaal xaasluu noqday oo nin dagaalo gala buu noqday oo nin qabaa'il hayo muran ka dhexeeya maamuluu noqday oo nin magaalo dad kala diimi i degan yihiin maamulo buu ahaa magaalada madiina yuhuud baa deganayd munaafiqiin baa joogay mushrikiin baa joogtay iyo muslimiin intaasoo dadaa meesha wada deganaa dadka noocaas iyuu nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam maamulayay nin taajiroo baac mushtaruu noqday oo wax iibiyo wax gada ilaahay markuu tilmaamayay nebiga sida loogu dayanayo lama tilmaamin qeyb noloshiisii ka mid a ee waxaa la tilmaamay siyaasad ha noqoto dhaqaale ha noqoto cibaado ha noqoto waxay doonayso noloshu ha ku saabsanaato fii rasuuli اllaahi baa ilaah yidhi waxaa ku dayataa nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa idinku sugan baa la yidhi uswatun xasana uswa iswa waa laba qiro waana isku macnay ku dayasho fiican baa idinku sugan baa rabbi leeyahay subxaanaه wa tacaala oo ficilkiisa iyo qowlkiisa iyo axwaashiisa oo dhan in lagu dayan karo noloshiisoo dhan markaa dhan kastoo aad ka eegto nebiyullaahi moxamed wuxuu ahaa qaa'id fad waxay culammadu yidhahdaan taariikhda bini aadamka qofka qura ee noloshiisa wax kasta uu sameeyey ay recorded tahay waa moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam oo keliya xataa bay yidhahdaan kuwan mucaasiriintaa ma aha nebi moxamed noloshiisa musqusha siduu u geli jiray baa qoran waa masquul siduu u geli jiray siduu u seexan jiray siduu wax u cuni jiray gacantuu wax ku cuni jiray
siduu u hadli jiray, siduu u dagaalami jiray, noloshiisii oo dhan nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam meel aanad helaynini ma jirto. qof bini aadam oo ay recorded tahay wuxuu sameeyey oo dhan min ibrillah iyo halka ugu sarraysa ma jiro. dadka maanta dunida qaadada la tilmaamo waa fii fannin min alfunuun aw fii xaala min alaxwaal. waa laga yaabaa nin in lagu yidhaahdo geesi buu ahaa dagaalamo caynkaa, laakiin noloshiisa kale haddii laga sheekeeyo inaad ka yaqyaqsootaa baa laga yaaba. markay goob dagaal joogto unbuu niye, laakiin inta kale siduu reerkiisa ula dhaqmi jiray haddii la sheego waxaa laga yaabaa inaanu ahayn waxba inuu yahay. waxaa laga yaabaa in laga warramo nin siyaasi oo dad maamulay oo mushkilad asma min alazmaad ka saaray, laakiin marka laga warramo cibaadadiisii ama ilaahay siduu ugu xidhnaa ama waxaa laga yaabaa inay zero soo baxdo. idan qof meel kasta lagaga dayan karo waanay meel gaar ahayn waxa lagaga dayanayaa nebi moxamed baa jira calayhi الsalaaةu wasalaam. marka waxaa la yidhaahdaa aliqtidaaءu birasuuli salى اllahu عalayh waalih wasalam amru muطaridun bay culammadu yidhaahdaan wa caamun fii kuli اlwujuuh. waa arrin bay usuuliyiintu yidhaahdaan meel kasta ku saabsan oo wax kasta lagaga dayan karo. hadday aabbannimo tahay, hadday qaa'idnimo iyo halyeynimo tahay, hadday qaadinimo iyo xukum tahay, hadday imaamnimo iyo hoggaan tahay, hadday mucallinnimo iyo waxdhigis tahay, hadday xaakim iyo maamul tahay, hadday taajir tahay, insaan noloshoo dhan ku ah tusaale weeyaan. sidaa awgeed nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa la yidhahaa noloshiisii meel kastoo laga tilmaamo alkamaal اlbashari ayuu tusaale u yahay. bini aadam dhammaystiran ayuu nolosha meel kasta tusaale ugu yahay. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamay in looba soo diray dunida in loogu naxariisto. wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin. adduunkan baa rabbi rabaa inuu u naxariisto. naxariistii ilaahay waxa weeyaa nebi moxamed alraxma almuhdaa. waa naxariis ilaahay subxaanaه wa tacaala uu dadka u soo hadiyeeyey. qofka bini aadamkaahi dhaqan ahaan waxay dhahaan bini aadamku cadamada iyo naxariista iyo shafaqada qofka ku sifooba waa qof dadku jecel yihi. qofkii naxariis ku sifooba iyo weyni waa qof dadku jecel yihi. ilaahayna wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa laqad jaaءakum rasuulu min anfusikum caزiizu عalayhi ma canidtum xariisu عalaykum biاlmuؤminiina ra'uufu raxiim fain tawallow faqul xasbiya allah. ilaahay wuxuu tilmaamayaa waxaa idin yimi rasuul caزiizu عalayhi ma canidtum ay dhib ku tahay dhib mudashadiinu, mashaakilkiinu isaga ay dhibayso. waxaa ilaahay uu ku tilmaamaya inuu yahay xariisun calaykum biاlmu'miniina ra'uufu raxiim, mid dadka dantooda ilaalinaya iyo wanaaggu wuxuu ugu jiro oo naxariis badan oo ra'uufun raxiima. hadday jeestaan baa ilaahay yidhi o ay ku raaci waayaan faqul xasbiya allahu laa ilaaha illa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu اlcarshi اlcadiim. idan warkoo kooban si guud waxaynu leenahay nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam ayaa ciddaynu kaga dayan lahayn noloshoo dhan. noloshoo dhan markaan leeyahay dadka maanta muslimiinta ee noole joogaa inta badan masaa'il agtooda waa musallam in nebiga lagaga daydo. waxyaabaha qaarkood muran kama taagna. maalan haddaad tidhaahdo nebigu siduu tukan jiray ha loo tukado, cid ka hadlaysa miyaad aragtoo le maya si aan nebigu u tukan baynu u tukanayna maya. dadku taa waa wada ogolyihi. haddaynu idhaahno siduu u soomi jiray ha loo soomo, cid ka doodaysoo le si kale ha loo soomo maynan maqal. idan umuuraha qaarkood agteenna waa musallam, waa wax la wada ogolyihi. laakiin arrimaha qaarkood marka lasoo hadal qaadaba in lagu daydo daayo waxaa laga yaabaa in adiga calaamatu su-aal ku fuusho layskaa weydiiyo la yidhaha warkani muxuu wadaa. haddaad tidhahdo nebi moxamed aan kaga dayana dhaqaalaha, ama nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam siyaasadda ha lagaga daydo, ama nebiga xukumka ha lagaga daydo, waxaa laga yaabaa in dadku bal horta inoo kaadi nebigu ay ka bilaabaan. bal horta ha dambeeye arrinka waxaynu u baahan nahay
maxaynu kale u baahannahay soo inagii isku ogeyn inaynu muslim nahay oo nebi moxamed rasuulnimadiisa qiray oo ilaahay yidhi isaga ku dayda maxaa keenay markay masaa'ilka qaar noqotona in la soo qaado masaa'ilka qaar markay noqotona inuu shakiguba bilaabmo bale qofka sheegaya inuu noqdo mararka qaarkood in lagu yidhaahdo waa wadaad yaro fudud ama waa nin yaro seeflabooda ama waa war kale iyadoo ilaahay leeyahay nebiga calayh الsalaaةu wasalaam وأna hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili kaas waa jidkii alle oo toosan oo quman ee isaga raaca baa la yidhi war waddooyinka kale ha raacina muslimkii hore goormuu guulaystay baynu odhanaynaa wuxuu guulaystay markuu aqbalay inuu nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam wixii alle u soo dhiibay wax kasta uu ka qaato isaga kaga daydo iyadoo kooban waxay leenahay muslimka dambe goormuu jabay wuxuu jabay markuu badhna gaal kaga dayday badhna nebiga kaga dayday muslimka dambe markaasuu jabay markuu isqaybiyey ee waxna ogolaaday inuu nebi moxamed kaga daydo calayhi الsalaaةu wasalaam waxna uu ka wareegay ilaahay markuu nebiga tilmaamayey kudayashaa idinku sugan qura lama odhanin waxaa la yidhi uswatun xasana ilaahay wuu xadiday kudayashaduu nebi moxamed lagu dayanaya sifada ay leedahay kudayasho wanaagsan baa ilaahay leeyahy waayo nebigaa waxaa loo tilmaamaya kamaal oo dhan inuu leeyahay bini aadamku kamaalku u baahnaayoo dhan inuu leeyahay waayo kudayashadu waa laba uswa sayi'a waa dhici kartaa wax xun qof inaad kaga dayato waad ku dayatay laakiin waxaad kaga dayatay maaha waxsan ilaahayna qur-aanku inoogu tilmaamaya suuradda qur-aanka ee maalin kasta dhowr iyo 10 jeer akhridaan ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa labada wado ama labada ku dayasho siday yihiin siraata aladiina ancamta calayhim gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin maalin kasta ku ducaysaa lagu yidhi waxaad ku ducaysanaysaa ihdina siraata almustaqiim ilahu jidkii qumanaanna mari jidkaa qumani waa la asteeyey waxaa lagu asteeyey inuu yahay siraaط aladiina ancamta calayhim kuwii aada u nicmaysay korkooda jidkii ay mareen jidkii rususha waa ka nebi moxamed maray calayhi الsalaaةu wasalaam waxaana la yidhi ka ducaysta wixii jid ee kaa nebi moxamed aan ahayn wixii jid ah ee kaa nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam aan ahaynna ka ducaysta oo maxay dhahaa غayr الmaqduubi calayhim wala الdaaliin labadan eray ama labada jumlo maxay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan almaqduubu calayhim ay alghaawiin bay culammadu yidhaahdaan bini aadamku baa la yidhahaa 3 qayboodun weeyaan waa raashid iyo haawi iyo daal bay yidhaahdaan raashidku waa qof xaqana gartay raacayna waa raashid haawiguna waa qof jidku u muuqdo laakiin wax kale ismoodsiiyo ka weecday dan baan iigu jirin iyo maslaxadda iyadoo caynkaa maaha iyo meel kaluu wax kale wuu arkaa xaq wuxuu yahay wuu umu arkaa kama qarsoona waa haawi baa la yidhaahdaa kaa fakaana min alghaawiin kii insilaaqu ku dhacay kii suuraة alacraaf ilaahay kaga warramayey kii aanu aayaadka iga siinay baa ilaahay yidhi ka siibtay ee ka mid noqday maxay haawiinta baa la tilmaamay qolada saddexaad waa qolo iyadu marka horeba ambada jidkii xaq ahaaba ma hayso dee mar haddaanu haynin waa ninkaa dayaysane waddo aan jirin buu isagu ku sii dadaalaya nebi moxamed ilaahay markuu sifeynayay muxuu ku sifeeyey maa dalla saaxibukum wamaa hawaa baa ilaah yidhi manuu ambanin oo jidkii mid dhinaca marayna ma aha isagoo jidka garanayana mid ka lumay ma aha baa ilaahay leeyay labadaa midna ma aha idan waxaa laynaga rabaa uswa xasana uswa sayi'a laynagama rabo uswa xasana inaynu la nimaadno iminka casrigan aynu joogno dadku wuu ambaday markaasaa wuxuu ku dayanayaa attawaafih bay yidhaahdaan dadkii liitay dunida mucaasirkaa nimankan cirka tegay aa maqasheen in badan oo ka midii waxay aamineen
waxay ku tilmaamaan alfalsafa alcadamiya waalfalsafa alcabathiya waa laba wado filosofigoodu uu maro mid rumaysan inaan waxba jirin iyo mid rumaysan nolosha gebigeeduba inaa cayaar iyo dheeldheeltay labaduba maxay wadaagaan qasdigii nolosha loo sameeyey bay garan waayeen yacni nolosha waxa la yidhaahdo waxay ku leeyihin it's meaningless noloshu waa bilaa macna bay leeyihin dhalo oo maalmo joog oo dhimo maxaa qiimo ku jira maxay macnaynaysaa buu leeyahy inaan sii noolaado inaan sii noolaanin inaan iska dhinto dabeetana qolada ka dambaysa kuwa kan oo iyagu dhaqaale un ka fekera maxaa dhaqaale ku jira bani aadamku hadduu maranayo danka ma leh dii dhaqaale laga helayo they will do waa samaynayaan bini aadamku markuu noloshu taafih noqotay ee uu macnaheedaba garan waayey ee aakhira u muuqan weyday ee ilaahay u muuqan waayey ee uu garan waayey wuxuu nolosha ka qabanayo qaybi waxay qaadatay waxay yidhaahdaan ilhaau nnaas dadka haddaba in la mashquuliyo ila way iswada dilayaanoo way dhamanayaan waa waalanayaan qofka bini aadamkii wuxuu u nool yahay haddaanu garanaynin ma shaqaynayo wuxuu qabanayaa ma jiro waayo waxaanu garanaynin waay uu waxaanuu samaynaya waay uu u nool yahay hadduu qofku garan waayo waa ambanaya wuu waalanaya si loo mashquuliyey waxay sameeyeen waxaa la yidhaahaa ilhaau nnaas dadka haddaba waa in la mashquuliyaa la madadaaliya inta madadaalada aqbashay waa la wadaa maanta iminka dunida sibaaq maxaa la yidhahdaa musaabaqaadka la qabto maxaa ka mid ah awrka dunida u qurux badan iyo orgiga dunida u qurux badan iyo markaasaa muxalliliini soo fadhiisanaysaa orgigan baa qurux badan indhihiisu caynkaasay u jeexan yihiin midabka dhishiisu waa caynka orgi baa la sifaynayaa waa dad baa isugu yimi in orgi laga warramo inuu yahay orgigii dunida u qurux badnaa in awr laga warramo inuu awrkii iminka even kuwan muslimka weli sii sheeganaya carabaha kan iyaba waxay leeyihiin awrka quruxda badan iyo in laysugu loolamo oo laysugu yimaado waxay dhahan waa ilhaau nnaas waa dadka in la mashquuliyo kuwa mashquulinta diiday iyagu way waashaan iyagu maxay isku mashquuliyaan jidhkooda inay iskoogooyaan ama wax isku sasawiraan dadkan iminka kubadda cayaariya heesiya maaragtay jidhkooda si u egi tatuu wada colors ba ku yaalla soo maaha midabo way isku sawireen midab maaha waa ways qaleen waa dab baa la surayaa waa la gubayaa qofkan waa la gubay waxaani wax ka maydhmaya maaha waa jidhkiisiiyoo la gubay waa dhiig baa ka daadanaya marka innaga laynoo yimaada waxaa la yidhaahdaa dunidii saddexaad baa tihiin oo maxaa la yidhaahdaa dumarkaa fircawni guddaano waa kanoo waa googoynaysaa iyagoo nool oo aan cidina cid googoyn isagaa isgoogoynaya weliba lacag ku bixinaya qaarkood inuu jidhkiisa googooyo ayuu leeyahy waan ku nafisaya markuu dawaqo ayuu midi qaadanaya isku dhufdhufanaya markuu dhiigu ka yimaado self injury bay dhahaan waxay dhahdaan yurub iyo north america iyo dhulkaa dadkayste afartankii waa hu intay qorayso hadda afartankii secondba qof baa isdila bay yidhaahdeen 10 to 20 times inta u dhaxaysana 10 ilaa 20 jeerna dadka isgoogooya ka badan dad qof bini aadam oo isgoogoynaya qiyaas bini aadama oo isagu isgoogoynayo leh markuu dhiigu ka soo duulo le haddaan nafisay markuu dhiigu ka soo duulo u arkaya inuu nafisay marka ama ilhaagaa lagu wadaa ilhaaga ugu badan laba shay bay ku sameeyaan waxaa la yidhahdo sports cayaar inan yar xaafad faqiira iskaga dhasho brazil ku taalla oo faamiliyadooda darogada iibiyaan ayaa kubadda si fiican u yara cayaaraya markaasaa la odhanaya 100 milyan baa la siistay oo muxuu soo kordhinaya 2 birood buu caag yaroo neefi ku jirto dhex mariya ma u malaynaysaa caag neefi ku jirto qof 2 birood dhex mariya inuu qiimihiisu 100 milyan gaadhayo ka badan baa maanta lagu iibsadaa waay qolo ka dambaysa oo lacag ka samaynaysaana way joogtaa kanna dadkaa looga dhigaya maxay qof weyn oo ay ku daydaan mashhuur baa laga dhigaya caam buu noqonaya markaasuu berri dhafoorka dhankaa ka xiiraya yararkao dhan baa subaxii dhankaa wada xiiranaya
saa dambuu dhankaa kalar marinayaa markaasaad arkaysaa iyagoo dhankaa kalar wada mariyey madaxiisaasuu maalinba dhan ugu cayaarayaa dadkuna waa kaga daba cayaaraya waa cayaar cayaartu nolosha maxay ku tartaa waxa ugu badane ay tartaa markay cayaar tahay waa haddii la yidhaahdo jidhkaa dhismaya jidhku ma in malaayiin lagu dhisaa buu u baahan yahi mise bannaanka inaad iska boodboodaabuu ku dhismaya gartay inta boodboodaysa le jidhkaanu dhisaynaa 2 bilyan oo qof oo dunida ku nool baa shaashadaha hor fadhiya iyagu maxay dhisayaan dadkan shaashada wada hor fadhiya daawanaya maxay dhisayaan iyaga maxaa u kordhaya kan garanoo waxaana tidhi cayaarta muruqyaa lagu samaystaa waa qofku caafimaad baa laga kaasi ha kaba helo adigu maxaad ka helaysaa adigu xanuun baad ka helaysaa waayo waxay idhahdaan indhahaagu intan limiqsan maayaan caynkan dhakhaatiirtu waxay idhahdaan xanuun baa laga qaadaa baalkan la hor fadhiya saa loo eegayo idan waa ilhaa الnaas kuwa tan aqbali waayana baab kalaa loo saaraa la idhaha muusig xidig hebel baa heesay concert baa la dhigayaa bannaan baa dadkao dham isugu imanaya nin baa habeen iyo maalin isku dhan qaylinayo halkaa taagan dadkao dham wuu ilmaynaya wuu hortaaganyay dhallinyaroo dham intay is hortaagto ayaa la ilmaynaya maxaa loo ilmaynaya ninkaasaa heesaya la leeyahy waa ilhaa الnaas waa dadkii nin ka mida kuwadan psychology-ga wuxuu lahaa in our society celebrates act like a drug annaga mujtamacaga iyaga buu yidhi dadka caanka ahi sida daroogadoo kaley noqdeen waa lagu sakhraamaa dadkan iskoogoynaya ama caynkan mid bay eeganayaan caan laga dhigay markaa soo duuduubo qofku markuu madho madhashada waxaan u jeedaa yacni gudiisa markaan waxba ku jirin markaan iimaan ku jirin waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa dadka ka jeesta baa ilaahay yidhi waxaanu u xidhxidhnaa shayطaan oo qariin u noqda waxaa la tilmaamaya waman acrada can dikrii faina lahu maciishaةa dankan wanaxshuruhu yowma اlqiyaamati acma noloshana cidhiidhay ku nool yihiin iyagoo lacag haystaa lacagtu dee dadka kama farxiso way badatay haye kabadhaad ku xidhay akawnyaad ku gurtay adiga maxaa kugu kordhaya waraaqayn halkaa la toomiya adiga maxay ku taraysaa halgu idhahdo waa bilyaneer okay bilyaneer baa tay laakiin adiga maxay kugu taraysaa maxay kugu kordhinaysaa caqligaaga maxay ka bedelaysaa dareenkaaga maxay ka bedelaysaa saad u nooshay maxay ka bedelaysaa laga yaaba dhallinyaradu in waxay is leeyihin haddaad caan noqoto lacag noqoto waad farxi lahayd farxi mayse maalintaasaad oohinta bilaabaysaa waayo kuwa haystaa way ooyayaan kuwa haystaa way iskoogoynayaan kuwa haystaa intay nolosha naceen buu habeen iyo maalinba darag cabbayaa soo ma ogid yurub iyo north america dadka isdilaa waa inta waxbaratay iyo upper classka dadka isdilaa waa upper class ma aha derbi jiifka ma aha iyo dadkan xamaalanaya kuwan xamaalanaya bris raadskay ku mashquulaan iyagu dadka isdilaa waa inta xoolaa heshay dadkan iskoogoynaya waa inta magaca iyo maamuuska heshay idan dunidaad ku nooshiin akhlaaqdii way luntay oo dee rag iyo dumar baaba la kala garan laayay hadduu qiyaas bini aadam lagu leeyay ninkuna mujtamaca shaqadii gabadhnimo wuu qaban karaa bay leeyihin gabadhuna shaqadii ninnimo way qaban kartaa